عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. soo dhawaada asxaabta. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharo ku saabsan barashada luqadda Ingiriishka. Casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay topic about Ramadan. Topic about Ramadan waa mowduuc ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadan. Since we are Muslims, maadaama ay nahay muslimiin, I would like to start my speech. Waxaan jeclaystay inaan hadalkayga ku bilaabo in the name of Allah, magaca Ilaahay, the most merciful ee naxariista gaara leh, and most compassionate ee naxariista guudba. After that, intaa ka bacdi, I want to talk about, waxaan doonayaa inaan ka hadlo the holy month of Ramadan, bisha barakeysan ee Ramadan. Ramadan is the 9th month of the Islamic calendar. Ramadan waa bisha sagaalaad ee taariikhda Islaamka. And it is the month of fasting, waana bisha soonka. In the month of Ramadan, bisha Ramadan, the first revelation, waxyigii ugu horeeyay of the Quran, Quraanka, was revealed, ayaa lagu soo dejiyay to the Prophet Muhammad, nabigeena Muhammad, peace be upon him, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Ramadan is the one of the 5 pillars of Islam, waa mid ka mid ah 5 tiir ee Islaamka. Fasting in the month of Ramadan, in la soomo bisha barakeysan ee Ramadan, is obligatory upon every adult Muslim. waajib bay ku tahay qof kasta oo muslim ah, male or female, lab iyo dhadigba, who has reached, kaasoo gaadhay puberty, waqtiga qaangaadhnimada, or sane, ama miyir qaba oo caqli qaba. While fasting from dawn, halka la soomo yahay from dawn waa beriga laga bilaabo until ilaa iyo sunset cadceedu ka dhacayso. Muslims refrain, muslimiintu waxay ka dheeraanayaan oo ay ka fogaanayaan from consuming food, inay qaataan cuntada, drinking, cabitaanka, smoking, sigaar qiijinta, and sexual intercourse, iyo sidoo kale waxay ka dheeraanayaan galmada. Muslims are also instructed, sidoo kale muslimiinta waxaa la farayaa oo la barayaa to refrain, inay ka dheeraadaan from sinful behavior, dhaqanada xunxun, that may negate, kuwaasoo ka dayacaya the reward, abaalmarinta ama ajarka of fasting, soonka, like lie, sida beenta, insulting, aflagaadada ama cayda, backbiting, xanta, cruising, habaarka, fighting, dagaalka, and so on, iyo wixii la mid ah intaa. Breakfast food before dawn, cuntada ka horeysa waa beriga, is called, waxaa la yidhaahdaa suhoor. While halka the post fast food after sunset, cuntada ka dambeysa cadceed markay dhacdo, is called, waxaa la yidhaahdaa iftaar. Fasting for Muslims in Ramadan, inta lagu guda jiro bisha Ramadan, dadka muslimiinta ah must, waxaa ku waajiba to increase, inay kordhiyaan of prayers, salaadaha, reading holy Quran, inay kordhiyaan akhriska Quraan Kariimka, and increasing, sidoo kale ay kordhiyaan doing deeds, waxyaabaha wanaagsan, like sida charity, sadaqada oo kale. aad baad u mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan.